Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin. Halkani waa Mustaqbal Traders. Waxaan idinla wadaagaynaa applicationka loo yaqaano Currency Heatwave iyo sida loo isticmaalo. Haddaba waxaad u baahan tahay inaad haysatid applicationkan la dhaho Lucky Patcher. Saa u aragtaanba magaciisa Lucky Patcher ayaa la dhahaa. Waxaa laga soo degsadaa inta badan Google-ka oo website-ka ah. Lagama soo dejin karo Play Store-ka sababo la xiriira amniga awgeed. Google Play Store-ka waa ka mamnuuc, balse website-ka Google waad ka soo degsan kartaa oo kan ah website-ka caadiga ah. Waad ka soo degsan kartaa Google-ka caadiga ku qoran waxaa leedahay halkaas meesha kore ayaad ku qoran kartaa magaca Lucky Patcher. Okay, haddaba waxaan tegaynaa Play Store-ka. Waxaan dooranaynaa barnaamijkan la dhaho Currency Heatwave. Markaan doorano automatically waa noo soo baxay. Install ayaad oranaysaa. Shaqada ayuu wadaa si degdeg ah ayuu noogu download gareysmaa maxaa yeelay waxaan wadanaa internetka Hormuud Telecom oo ah mid aad iyo aad xawaare sare u leh ilaa kheyraar siiye. Haddaba waa uu soo degay. Haddaba marka muxuu sameeyey aan ku dhufana marka ma la isticmaali karaa mase cilad ayaa jirta Currency Heatwave markaa soo dejisid. Okay, wajigaana naga hor imaaday. Okay aad leedahay, haddana okay dheh. Haddaba waxaan u baahannahay inaan aragno suuqa iyo xawaarihiisa. Haddaba saan waa marka meesha muhiimka halkan u qoran tahay this is premium feature to unlock you need to purchase, iyo halkan ay ku qoran tahay multiple time frame ka ujeedaasina gadow ku leeyahay. Haddaba lacagtaas ma haysan annaga maxaan samayn karnaa marka? Haddaba waa soo bixisaa waxaad tegaysaa Lucky Patcher marka hore aan kuu sheegay. Lucky Patcher markaad tagtid waxaad ku dhufsanaya applicationkii aad soo degsatay kuu shaqeey waaye. Currency Heatwave ayaa hadda annaga danteena tahay. Currency Heatwave halkaas ayaad taabsanaysaa ay ugu qoran tahay menu of patches. Okay, create modified APK file. waxaad leedahay marka waxaad dooranaysaa qoraal koowaad 2 3 4 ayaad dooranaysaa. Okay, waxaan wax kama bedelaysid sidooda ayaad waxaad ku leedahay rebuild the app. Okay ayaad oranaysaa asaa shaqadiisa marka galayo oo wadaya. Waxaa laga doonayaa intaas yartaa inaad sugtid kadib marka waxaad u baahan tahay inuu ku dhamaystirmo. Okay, waa shaqo adag marka waxaa waa inaad dulqaad yeelataan aad u fiican tahay maxaa yeelay barnaamijkan waa barnaamij qof walba ka caawin kara sidii uu kula socon lahaa suuqa iyo lacagaha awoodda la markaas iyo weliba lacagaha xilliyada ugu dhaqaaqa badan yihiin. Waxaad arki kartaa weliba inay lacagaha inta badan habeenkii aysan movement lahayn ee aad u shaqeeyaan London session iyo New York session. Hadda waa shaqo bilaabo ujeedaan. waa hagaag marka waxaa noo soo baxday wajigaana noo soo baxay. Okay, maxaa lagaaga baahan yahay marka? Waxaad leedahay go to the file markaad tagtid
waxaad ku dhufsanaysaa meesha ay ku qoran tahay rebuild ayaad taabsanaysaa. waxaa kuu soo baxday meeshii hore abk file. okay aad oranaysaa waan isku soo celinay, soo ridaal ahaada meel khaldanaa dooranay, balse hadda ayaan meesha saxda aan ku laabanaynaa. meeshii rebuildiga ahayd annagoo rebuild already mar hore dhahnay ayaan mar kale rebuild ahna oo ah micnaheeda gadashada applicationkan ka saar ayaan mar hore dhahnay, haddana diba u dhahnay codsana, taasoo ahayd khalad. waxaa loo baahnaa inaan dhahno reinstall. hadda waxaan dooranaynaa reinstall iyo waxii iska bedelo meelihii data lacagtana la weydiinaysa noqon. okay go to the file reinstall. okay ayaad oranaysaa. okay install ayaad oranaysaa markaan. okay marka hadda dan ayaa leedahay halkaan ka gelin kasoo bax meeshiisa hore soo joogo ku dhufsa. marka wixii isbedelay haddii indheenaa ku arkeenaa. bismillah. okay hadaya wuxuu naga diiday strength meter meesha ku qoran tahay. hadda ku dhuf waa ujeedaan waxaa soo baxay wejigan meeshii multiple time frame ay ku qorneed wax gada ku qorneed ayadana noogu dhufo waa ujeedaan lacagihi soo baxay. haddaba waa intaasoo keliya wax oo hakin ah iyo khalad iyo micnaha wax khiyaano oo micnaha dadka qaar waxaa arkaya waxay ku bilaabeen barnaamij oo fals ah oo thumbnail iyo waxaas oo clickbait ah oo been ah, balse barnaamijkan waa mid aan clickbait ahayn oo aan kugu tusay min bilaaw ilaa dhammaad sida loo jabiyo iyo sida uu ku shaqo galo. waa kaasaa qofkii daneynaya uu ku shaqaysan karaa. weli wuxuu leeyahay multiple time frame-ka aniga aad u isticmaalaa iyo okay multiple time frame-ka waxyaabahan marar kale aan ka hadli doona insha allah iyo sida u shaqeeyo. haddana waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan oo aad idin anfici doono insha allah. qofkii ka sheekaysan markale ku laabeena inuu shaqeeyo in kale. waa ujeedaan lacagihii waa nutusay shaqadooda haye ujeedaan. wabillahi tawfiiq.